halkani waa Djibouti xarunta jamhuuriyadda Djibouti markii ugu horeysay nolosheeda ayaan Djibouti imaado. Djibouti-dan sheegaya waa Djibouti maanta dayaxa sare sahan uga maqan. Go transporter, go SpaceX. People touching down range. Waa Djibouti ku fadhida kursiga ugu sarreeya Afrika. Waa Djibouti leh diyaarada dunida rakaabka u kala qaada. Waa Djibouti baasaboorkeedu dunida qadarin ku leeyahay. Djibouti waa Djibouti ciidan cudud saarad military oo cabsi leh ciidda cirdiga iyo calanka ilaalintooda ay u carbisan yihiin. waxaa sheegaya quwadda qaaradda iftiinka ilayska geeska dheemanka Afrikada ka dhex dhalaalaya bugcad muhiim ah dhul istiraatiijiyad ah wadnaha isku xidha shixnadaha dunida ee ka kala gudbaya maranbiyoodka baabulmandabka. Djibouti waa Djibouti isu diyaarinaysa u dabaaldega maalinta xorriyadda oo Juunta afka inagu soo haysa 27-keeda Djibouti way 49 jirsanaysa. وسجالي أفرتن حسيلوني حضارة هرمر حلكستمو أي أفريقيا يدني ذا بكجا مذهي كجت اللابستي وهذا أي كجت المامنتاي. جيبوتي أدل ككل يدني ذا إنت لاقي بيس مثل اللي عيدا كود ليهن مريكا كيشينه. دولتها عالم كبه حتى لك جراه متجر دل كليه وقوده إنت لك دل كيس كود مرتيج لكرا. مريكا يشينه. كليه halkan saldhigay kuma laha ee halkan waxa kale oo saldhigay ciidan ku leh dalalka Japan, Jarmal, Faransiiska iyo Talyaaniga sidaas ay tahay haddana deera ma hirtido sababtu waxay tahay halkan waxa ka jira dawlad iyo dadkeedii oo isfahamsan midna mid aanu u tallaabin. Djibouti waa dal ka mid ah dalalka dunida ugu yarda ahaan iyo dhul ahaanba haddana miisaanka siyaasadda geeska miisaama dal uu ka socdo horumar xoog xawli iyo xawaare koordaya. dadkeedu waa dad xadaariyiin faham buuxa ka haysta waxay tahay dawladnimadu sida Soomaalida aan ahayn dad wada siyaasi fadhi ku dirir muran iyo dhuran goob kasta la yurura taa beddelkeeda xoogsada mid kasta danihiisa ku foogan yahay dalkiisana la shaqeeya. Somali Anfar Arab Cadaan intuba halkan way ku nool yihiin qofna qof hal ma dheera isku siba loogu nool yahay loogu xoogsadaa ganacsi waa isdhaaf qofba halka uu rabayo ka tukaamaysanaya. dawladdu iyaduna bulshada way dhistay oo hadda dalalka Afrikaanka ku arki jirtay siyaasad iyo shacab isku milan isdhex qaadaya xadhig iyo xayndaab kala xidhnaanu jirin. halkan sidaas kama jirto ee waa la kala soocay soohay waliba la kala haadiyay xadhig iyo xeer ayaa loo kala sameeyay rayidka iyo siyaasadda qolo kasta xadkeeda iyo xuduudeeda ay ku egtahay oo qolana qolo uma talaabo. taas waxay Djibouti ka dhigtay xarun xasiloon dunidu xiisayso cadawga aanu fursad sinaba uga helin quwadaha dunidu aaminaan oo xamaanta ay dhigtaan iyaduna xidigaha sare ay xawaare iyo xawli ugu socotaa. caafimaadka iyo waxbarashadu waa bilaash tiyadooda la ilaaliyay waliba si adag loo daba joogo. lacagta Djibouti laga isticmaalo waa lacagta faranka 5 faran ayay ka bilaabantaa ilaa iyo 10,000 oo faran. luqadda ugu weyn ee laga hadlaa waa Faransiis, Anfar, Carabi iyo Soomaali ayaa soo raaca. Djiboutiyaanku inta ay marba garan waa geediga ku raacgeliyay iska cashaqeeni lahaayeen
sida Soomaalida iyo badi bulshada si aragtida dheereen ay kulba waji cusub u calmadaan alifna isagoon u qaban haddana mid kale u jantaan iyagu waxay taa bedelkeeda maskaxda ay geeska dheer yihiin macalinka siyaasadda mandaqada Ismaaciil Cumar oo Jabuuti ka dhigay Jabuutidan maanta dayaxa sira dunida ka daawata ay door kasta dib uga codsataa in uu maantana iyaga dartoodu joogo nin haliyo nin hoos wuxuu wataba waa laga haray noohili maantana dadkaagii kuuri waaye haddii kale ay hakanayaan hogaansane markii aad taho lama huraan buuxa horumarkii abeerta markuu heer dhexaad joogo dunidani isiftiyo intuu hugunku qiiqayo ula soo bannaaniyo intay hagaarisi talo shacbi ku haweyn lagama tago wuu hakanayaa waan aqbalay waxaad ii weydiiseen dibinaadagu doorto abadoorka waxa sababay bari iyo galbeedaynay dacaliyo deg baan eegnay dastuurkaan furnoon dhowray dalka aabbo ku baahan dadka wada jirku raba إلهي ودنكينا أتكيو اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وحا أن جعلنا هاي ودنكينا إنو هري والسعودان جعلنا إنو النبات كنا أولادان جعلنا إن أنهرو مرقار سينان دونينا دلنتا ندينا دلنتا يددك واوين انتبا وحان دونينا مستقبل ونكسن markale Jabuuti kuwa dad iyo dalqaan gaadhay oo doorashooyinkoodu aanay maalinna dib uga dhicin bilaa buuq bilaa jabaq xasilooni iyo nabad dadka ku codeeyo Jabuuti sanad kasta waxa dalxiis u yimaada 100,000 oo qof oo caalamka ka kala yimi halkanna waqtigooda xasuusaha xiisaha iyo xasiloonida ku qaata Jabuuti dii dawladda Soomaaliya oo 9 sano naxash lagu siday dib nafta loogaga neefafufay laguna soo dhisay dawlad Soomaaliyeed burburkii kadibna dawlad la isla ogol yahay waana tan ilaa maanta shaqeynaysa dunidana la macaamisha Jabuuti xarunta nabadda xasiloonida horumarka iyo ilbaxnimada walaalo aynu leenahay oo quwad ka ah qaaradda iyo mandaqada